saacadihii la soo dhaafay ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo si wada jir ah u howlgalaya ayaa deegaano ka tirsan gobolka Mudug waxa ay ka sameeyeen howlgallo isdaba joog ah kuwaas oo lagu baarayo deegaano badan oo kal hore kooxda al-shabaab ciidamadu ay kala wareegeen. Howlgalladan ayaa si wada jir ah waxa uu sameeyay dadka deegaanka iyo ciidamada dowladda gaar ahaan ciidamada qaybta 12aad iyadoona taliyaha qaybta 12aad uu hogaaminayay. meelaha howlgalladaasi ka dhaceen waxa ugu badan Ceelhuur oo dhawaan kooxda al-shabaab lagala wareegay ciidamaduna ay ka howlgalayeen maalmihii la soo dhaafay. haddaba howlgalkaasi kadib maxaa dhacay, sidee xaalku yahay, maxaase lagu soo qabtay inta howlgalkaasi uu socday, inkastoo wali deegaanadaasi howlgalladu ay ka socdaan sida saraakiishu ay noo sheegeen oo si joogto ah looga wadi doono. halkan ayaan kugula wadaagi doonaa maxaase ka jira amaba wararka aynu ka helayno maxay yihiin ka imaanaya dhanka kooxda al-shabaab iyo meelaha ay ku sugan yihiin gaar ahaan deegaanka lagu magacaabo Jowle oo maleeshiyaadku ay saldhigteen kadib markii ay ka soo baxeen degmada Xardheere ee gobolka Mudug iyadoona la xaqiijiyay in halkaasi ay ajaanib ku hayaan dad shacab ah oo farabadanina ku sugan yihiin deegaankaasi. warar kala duwan aydan kaga haynaa iyo sidoo kale madaxweynaha maamulka Galmudug oo ku sugan wali magaalada Xardheere waxa uu la kulmay qaybo kala duwan ee bulshada kadib markii socdaal uu ku sameeyay gudaha magaaladaasi si uu ugu korgalo xaaladda dadweynaha halkaasi ku nool. dhammaanba halkan ayaan kugu soo gudbin doonaa balse inta aynaan gudagalin si share garee muuqaalka oo asxaabtaada la wadaag kuna soo bir page-ka haddii aad ku cusub tahay sidoo kale muuqaalkan like saar si meel dheer uu u gaaro. aan ku bilaabay howlgalkan ciidamadu ay ka sameeyeen qaybo kamid ah gobolka Mudug gaar ahaan Ceelhuur iyo agagaarihiisa ayaa waxa lagu soo qabtay hub fara badan oo kooxda al-shabaab ay ka carareen ayna ku aaseen halkaasi ama meelaha howlgallada laga sameeyay. hubkaasi oo noocyo kala duwan isugu jira sida qoryaha fudfudud ee AK-ga ah, qoryaha kale ee BKM-ka loo yaqaano rasaas fara badan iyo bombooyin iyo waxyaabaha qarxa ayaa ciidamadu ay soo saareen. saraakiisha howlgalkaasi hogaaminaysa gaar ahaan taliska qaybta 12aad waxay noo xaqiijiyeen in howlgalku uu sii socon doono maadaama dhawaan kooxda al-shabaab lagala wareegay deegaanadani ayna u baahan yihiin baaritaano dheeri ah in lagu sameeyo. kooxda al-shabaab ayaa maalinnimadii shalay ahayd qasaare badan lagu gaarsiiyay deegaano hoostaga degmada Xardheere ee gobolka Mudug iyadoona duqeymo loo geystay darteed looga dilay maleeshiyaad fara badan iyo horjoogayaal. sidoo kale looga qabsaday deegaano kamida kuwa hoostaga degmada Xardheere oo ciidamadu hadda ay ku sugan yihiin halkaasina ay ka howlgalayaan. dhinaca kale waxaa jirta in galankii dambe ee shalay kooxda al-shabaab ilaa dhowr gaari oo ah kuwa dagaalka ay gubeen oo iyagu ay markii horeba lahaayeen balse ay awoodi waayeen in ay wataan ama ay waayeen meel ay ku wataan maadaama diyaaraduhu ay dul taagan yihiin ayna bartilmaameedsanayaan taasina ay ku qasabtay in ay dab qabadsiiyaan. intaas markii aynu kaga soo tagno deegaanka lagu magacaabo Jowle oo kamid ah deegaanada hoostaga degmada Xardheere ee gobolka Mudug wararka aynu ka helayno waxa ay sheegayaan in kooxda al-shabaab ay halkaasi ku sugan soona gaaray kadib markii ay isaga soo baxeen degmada Xardheere oo kal hore lagala wareegay argagixisada al-shabaab ayaa wararka aynu helayno waxa ay sheegayaan in halkaasi ajaanib badan ay maleeshiyaadku ku hayaan sidoo kalena iyaga dhexdooda khilaaf uu ka jiro kaas oo ah in ay deegaanka ku dagaalamaan ama ay sii joogaan iyo inay isaga tagaan. laba ay u kala qaybsadeen sida dadka deegaanku ay noo soo wariyeen xogtaasina nagu soo gaarsiiyeen inkastoo aynaan jecleen inaan halkan ka sheegno amaba aan warbaahinta la wadaagno dadkii xogtaasi nala wadaagay. waxay noo sheegeen dadka deegaanku in maleeshiyaadku ay isqabteen labana ay u kala jabeen oo kuwa ay leeyihiin deegaanka ha lagu dagaalamo oo ha la joogo dadka shacabka ha lagu celiyo kuwana ay leeyihiin hal isaga guuro maadaama saacad waliba diyaaradii dul taagan tahay ciidamadii dowladda iyo kuwa deegaankana laga yaabo inay goor waliba halkaasi tagaan kana howlgalaan. kooxaha al-shabaab ayaa hadda waxa ay taagan yihiin quustii ugu dambeysay maadaama dagaalo badan oo ka dhacay gobolada Soomaaliya lagu jabiyay qasaarihii ugu badnaana lagu gaarsiiyay sidoo kalena looga qabsaday degmooyin iyo deegaano muhiim ah oo maleeshiyaadku muddo dheer ay ku sugnaayeen shacabka Soomaaliyeedna ay ku dhibaateynayeen. kooxda argagixisada al-shabaab bilihii la soo dhaafay waxaa la gaarsiiyay qasaare badan kadib markii howlgalladu ay ka bilowdeen gobolada dalka Soomaaliya
iyadoona dagaalo joogto ah iyo kuwo kale oo si gaar ah loo fuliyaba ay ka dhaceen meelo badan oo khasaare lagu gaarsiiyay kooxda argagixisada al-shabaab sidoo kalena duqeymo ay barbar socdeen lagu naafiyay maleeshiyaadka al-shabaab oo dhibaato badani ay ka soo gaartay kuwaas oo lumiyay cududoodii ay ku lahaayeen meelaha lagala wareegay ee gobolada Soomaaliya goboladan mudug iyo galgaduud ayaa hadda howlgalladu inta badan ay ka socdaan ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka oo isgarabsanayana ay maleeshiyaadka kula dagaalamayaan meelo fara badan ayna ka saareen haddaba sida aad u aragto horumarkan laga gaaray howlgallada ka dhanka ah kooxda al-shabaab qaybta faallada ama commentiga waa nagula wadaagi kartaa muuqaalkana noo sii shargaray waayahay qodobkayga ugu dambeeya markii aynu eegno madaxweynaha galmudug oo weli ku sugan magaalada Xardheere waxa uu kormeer ku tagay xaafadaha magaaladaasi ay ka kooban tahay si uu ugu kuurgalo nolosha dadka halkaasi jooga ama dadkii ku haray magaalada Xardheere waxa uuna la kulmay bulshada halkaasi ku sugan isagoona ka dhageystay baahiyaha ay qabaan iyo xaaladoodu sida ay tahay maalmihii la soo dhaafay ciidamada ayaa si buuxda uga howlgalayay gudaha magaaladaasi waxaana la arkayay burburka iyo raadadka maleeshiyaadka al-shabaab ay sheegeen maadaama in badan maleeshiyaadku halkaasi ay ku sugnaayeen shacabka Soomaaliyeedna ay ku dhibaateynayeen ayna u diideen horumarkii halkaasi la rabay in bulshadaasi ay hesho ay ka mid yihiin waxbarashada caafimaadka iyo adeegyo kale oo bulshada aasaasi u ah weli madaxweynaha iyo madax kale ayaa halkaasi ku sugan ciidamada ayaana ka howlgalaya gudaha degmada Xardheere iyo deegaano kale oo hoostaga 48 saac la soo dhaafay qasaaro badan ayaa kooxda al-shabaab lagu gaarsiiyay deegaanadaasi wararka sida aynu ku helayno waxa ay sheegayaan in gaadiidka dagaalka ay geedaha hoostooda ka soo bixin waayeen qaarkoodna ay gubeen kadib markii ay tahli waayeen in ay wataan iyadoona shalay deegaano ka tirsan gobolka mudug ay dab ku qabasiiyeen kadib markii ay wadan waayeen kana sii baxayeen deegaanadaasi ciidamada ayaana hadda si buuxda ugu sugan deegaanadaasi oo ka howlgalaya waxyaabaha ku soo kordha halkan ayaan kuugu soo gudbin doonaa iyo hadba xaaladdu halka ay marayso iyo sida wax yihiin iyo waxyaabaha nala soo gudboonaada insha Allah waana ku mahadsantahay halkan haddii nala soo gaartay muuqaalka sii share garay waa asxaabtaada la wadaag kuna soo bir page-ka haddii aad ku cusub tahay si muuqaalada halkan aynu ku soo gudbino ay ku soo gaaraan waxa aan mar waliba ku dadaalaynaa xogaha ka dahsoon iyo wararkii ugu dambeeyaba inaan halkan kuugu soo gudbino